haddii aad rabtid qur-aanka kariimka inaad baratid adigoo gurigaaga amba goobta shaqadaada jooga amba caruurtaada iyo ahli beytkaaga aad uga faa'iidaysatid fursadan qaaliga ah daaril huda litaxfiid alqur'aani alkariim wa culuumih sidoo kale waxaa halkan lagugu barayaa culuumta kala duwan ee diinta iyadoo looga bilaabayo qof walba baahidiisa iyadoo loo eegayo iyo weliba rabitaankiisa haddaba nambarka aad ka arkaysid shaashada kala soo xidhiidh دار الهدى لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما ولا لها قيمة أي قدر انت مضن أي كحيلا channel كينا فاطمة منا channel خير إيا برواقة بدن أيان ذي رجيني يا ميل بودا فهد نذي كلي شوكتاني يحلو والبويدي سو قادو فيديو غان تنوى قصة رنتي قصصك إيمانياتك إيو إن رنتي يقينك إلهي سبحانه وتعالى إن لغو بريو يقين أي إن بريسا قصة داني gabadh ayay ku dhacday carbeed waxa ay tidhi waxa aan haystay hooyaday oo xanuunsatay oo waayeela oo xanuunsanaysa hooyaday waxa ku dhacay xanuunka wadnaha xididada wadnaha qaar ka mid ah ayaa daboolmay oo xidhmay taasi waxay keenaysaa markaa wadnuhu inaanu oksijiinku amba hawada maaragtay oksijiinkiisu ayna wadnaha ayna si fiican u wada gaadhin arrintaas oo runtii ah xaalad aad iyo aad halis u ah hooyaday gacaliso ayaa sidaa u xanuunsatay aad iyo aad iyo aad ayaan uga warwaray dhakhtaradii oo dhan waxa ay ku adkaysteen hooyaday in qalliin loo samaynayo oo qalliin la-aantii ayna ku bogsanahayn qalliinkaasi wuxuu ahaa mid warwarna geliyey oo aanu aad iyo aad iyo aad uga warwaraynay iyo guud ahaan xaaladda caafimaadka ee hooyaday la soo daristay run ahaantii aad iyo aad ayaan u murugooday waxa aan dhageystay sheekh ka hadlaya ducada iyo yaqiinka iyo istighfaarta iyo waxyaabahaasi waxa aan markaasi iyo weliba salliga nabiga as-salaatu al-ibraahimiya allahumma salli wa sallim barik ala rasuulillaah marka waxa aan go'aansaday in aan laazimo waxyaabahaas iyo adkaartaas waxa aan markaasi aan laazimay oo aan joogteeyay as-salaatu al-ibraahimiya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحكرا أن لازمي أو أن مرول بتشوكتي استغفارك استغفر الله العظيم وأتوب إليه استغفر الله أي لازمي إن أنا أو مركا ولي بالله إيمانيا يقين inaan hubaal hubo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu keligii wax bedeli karo hadalkan dhakhtarada iyo go-aankooda mar walba inuu ka muhiimsayo ka horeeyo oo wax walba qadarta ilaahay ay ku dhacayso ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu uu rabo uu wax ka dhigayo aniga oo niyadaasi u niyeynaya markaa istighfaarta iyo salaata ibraahimiya u niyeynaya inuu ilaahay ku caafiyo hooyaday ogna xadiidkii rasuulkii sala allahu calayhi wasalam uu ku sheegay qofku markuu istighfaarka u badsado tukfaa hamuka wayakfaru dhanbuka wax walba oo warwar kugu hayay oo murugo kugu hayay oo maaragtay aad ka murjisnayd aad ka warwarsanayd ilaahay wuu kaa kaafinaya wax walba oo dembiya oo aad maaragtay samaysana ilaahay waa kaaga dhaafaya maaragtay salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam marka aad badsatid aniga oo markaa taa yaqiinsan oo yaqiin la imanaya cibaadadaydiina toosinaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala kaga cabsanaya fi sirri walcalan markasta iyadoo la arkayo iyo iyadoo oo aan keli ahayba mar walba cabsida ilaahay maaragtay qalbigayga ku weyn tahay waxaa dhacday muddo 3 bilood keliya in haddana hooyaday ballan kale loo qabtay ballantii dhakhtaradii inay baaritaan kale ay ku sameeyeen awalna dhakhtaradu dhammaan dhowr dhakhtaro badan ayaa go'aamiyey hooyaday qalliin mooye wax kale inaynu ku daweysmahayn marka dambe ee 3 bilood kadibna hooyaday markay baaritaanadii oo dhan lagu sameeyey dhakhtaradii waxa ay sheegeen hooyaday xaaladeedu inuu aad iyo aad u fiican tahay
in ay caafimaad qabto, wadnaheedu inuu caafimaad qabo, wax qalliinana haba yaraatee inayna u baahnayn oo xaaladeeda caafimaad ay aad iyo aad iyo aad u soo fiicnaatay. arrintani waxa ay runtii igu dhalisay markaas inaan aniguna la qaybsado walaalaha oo aan u sheego muslimiinta ah meel walbay joogaan aan u sheego qofku marka uu yaqiin uu la yimaado hubaal inuu hubo inuu Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu uu ka baryo u weydiisanayo isagoo ilaahay huba oo xusni dhanni billah ilaahay waxsan ka filanaya. qofku markuu ilaahay baryo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu bariyay qofkaasi akramul akramiin, deeqsigii deeqsiyada oo dhan ugu deeqsisanaa, cidina ayna sidiisa ahayn oo cidna lagu mataali karahayn. walilaahi almathalu laclaa, laysa kamithlihi shay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka barya inaanu baryadiisa ku khasaarahayn. allah subxaanahu wa tacaala yaqiinkaas inuu qofku la yimaado weeyaan. markaasi hooyada ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad taama ayuu siiyey. warwarkii aanu ka warwarsanayna sidaasi iyo kurbadiina haysatayna ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasi ayuu nagaga fayday. maasha allah tabaaraka allah. dhammaanteen walaalayaal kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeedsada fafiruu ila allah, marka uu dhibaato ku dhacdo ilaahay u carara. ilaahay haynaga dhigo. taa laftigeeda ayaa waafajin ah, waayo cid walba marka ay dhibaatadu ku dhacdo ma u cararto ilaahay. dadka qaar baa shaydaanku ka tambadiya, dadka qaar baa iska murugoodo iska baroorto oo hadallo gaf ahoo badan ku hadla. laakiin qofka ilaahay waafajiyaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa wada iimaan iyo yaqiin ah, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u jeedsado oo ilaahay uu u cararo oo kurbo walba iyo dhibaato walba uu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu cararo. ilaahay subxaanahu wa tacaala yaqiinna uu ku baryo. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ma dayacayo. ilaahay waxaynu ka baryaynaa qadarta khayrkeedana inuu ilaahay ina siiyo, sharkeeda dhammaanna inuu ilaahay inaga qabto, inaga iyo ummadda muslimiinta meel walba daafaha dunida kala joogaanba. walaalayaal intaynu ku kulmi doono barnaamij kale khayr iyo barwaaqo badan baan idinkaga tegayaa. waxaan idin leeyahay fi amaanillah, istawdactukum allahi alladii laa tadiic wadaa'icu. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. subxaanaka allahuma wabixamdika, subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika, ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaghfiruka waatuubu ilayk. haddii aad rabtid qur-aanka kariimka inaad baratid adigoo gurigaaga amba goobta shaqadaada jooga amba caruurtaada iyo ahli beytkaaga aad uga faa'iidaysatid fursadan qaaliga ah daaril huda litaxfiid alqur'aani alkariim wa culuumih. sidoo kale waxaa halkan lagugu barayaa culuumta kala duwan ee diinta iyadoo looga bilaabayo qof walba baahidiisa iyadoo loo eegayo iyo weliba rabitaankiisa. haddaba nambarka aad ka arkaysid shaashada kala soo xidhiidh daar alhuda litaxfiid alqur'aani alkariim wa culuumih.